السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سلام معي الصومالي من الجبال سلام كتب نورو soo laabatay maxay la soo laabatay waxa cusub ee la soo laabatay waa maxay dabcan waxaan la soo laabatay arrin wanaagsan inaan niila wadaago arrintaas oo aniga soo tijaabiyey oo 100% oo mid aan idinka hubo haddii aad u samaysaan sida loo baahan yahay haddii aad wadada saxda raacdaan waxaa huwa leh in arrintaas idinkana aad ku guuleysan doontiin hadduu rabbi ka raali noqdo hagaag haddaba waxaan idinka doonayaa haddii aad igu cusub tahay qofka cusub waxaan doonayaa inuu subscribe ii saaro janaalkayga Ibanora maadaama ay muddo ka maqnaa hadda dib u tashtay hagaag sidoo kaleeto laygta ayaga iloobin aan ka socdo waxaan jeclaystay inaan soo bandhigo walaalihii Soomaaliyeed arrin aad u muhiima taasoo aniga aan soo tijaabiyey anigoo waqtigaan ilaalinayo oonaan ku dhiiranayn fiidiyogan inkastoo fiidiyogan uu yahay mid aad iyo aad u muhiima fiidiyogan wuxuu ku saabsan yahay dadka jaceylka galay sidoo kaleeto jaceylka loogu baxay jaceyl dhaawac galay maxaa lagu dabiibi karaa weeyaan su'aasha haddii aan jawaabta aan idin siiyo jawaabta waa bay u fududahay 4 qodob ayaan ka soo qaadanaynaa waxaa huwaal 4taas qodob haddii aad ku dhaqaaqdo ama sida loogu talagalay haddii aad u samayso waxaan aan huwa inaad jaceylka qofka aad u qabtay inaad iloobi doontid hadduu ilaahay ka raali noqdo haddii xalay fiidiyogan aad xalay dhamaysato insha Allah karim aad sida aan ku sheeganay aad u dhaqanto oo kadibna aad ka hesho oo jaceylkii qofka u qabtay aad iloodo waxaan jeclaysanahay inaad committee hoose aad ila soo wadaagto insha Allah karim waqtiga in hayo haddaba aan bilowno number 1 qodobka koowaad wuxuu ka hadlayaa habeenkii haddii aad jiifanaysid ha jiifan keligaaga waxaad samaynaysaa dhagahaagiyaad earphone gashanaysaa kadibna quraan ayaad shidanaysaa quraan markaad dhagaha ku shidatid wax niyadda soo galaya ma jirto shaydaankan uu ka fogaanayaa sidii saafiin oo u jiifanaysaa hurdo macaanna waad helaysaa taawa waynu wala ognahay laakiin dadka badan ma sameeyaan laakiin markaad jaceyl ku hayo habeenkii hurdo kaama soo dhacayso saas baa u rafanaysaa waxaas leedahay talooyaa ku tuso muu kula soo hadlo muu yeelo habeenkii shaydaan baa kaa waalayo maba seexanayso hurdadii dhanba shaydaan baa qaadanayaba marka sifataas u dhicinba ka hortag waxaa ugu hortagi kartaa waa inaad quraan dhagaha ku shidataa waa inaad earphone dhagaha gashataa aad kadibna seexataa si xasuunooni ayaad u seexanaysaa wixii qalbiga ku jira dhammaan dhaliida leedahay number 1 dhaliid saa u dhaliid garanaysid qalbiga nadiifa wax ku jira jeefanaysa subaxan waxaa soo toosaysaa adigoo hurdo bogsatay qodobka koowaad haddii aan dul istaago number 1 waa in aad qofka jeceshahay oo qalbiga ku haysid hari habeen ka seexalaadahay haddii aad doonaysid inaad qalbigaaga ka saartid number 1 waxaad samaynaysaa sawirkiisa masawiradiisa haddii ku jiraan taleefankaaga ka wala dhaleed sidoo kaleeto magaca taleefanka nambarkiisa haddii uu ku save garaysanaa asigana iska dhaleed karee mar kaleeto adeegadan ku tahay inaad iska dhaleed garaysid nambarkiisa ama magaca ku save garaysanaa nambarkiisa total parties wala raacsiisid sidoo kaleeto masawiradiisa aad ka saartid taleefankaaga taa waa qodobka koowaad qodobka labaad haddii aan soo gudbo markii habeenkii aad seexanaysid waxaad samaynaysaa
quraan iyo dhagaha gashanaysaa sifa aad usoo xasuusan ereyadiisa ama waxyaalaha kusoo xasuusan kartid sifa aadan usoo xasuusanin dhagaha earphone gasho alaafo quraan shido quraankaas xoogaa waxaad ka helaysaa degnaan sidoo kale waxaad ka helaysaa hurdo yaroo macaan hurdo la-aan kuguma dhacayso waa jiifanaysaa hurdo macaani yaa jacayl dartiisa la ilmeyni maysid habeenkii hurdo la-aan markuu ku ridayso aad iyo aad u jiifanaysaa taa waa ta ugu wanaagsan habeenkii haddii aad seexanaysid dhagaha quraan gasho aad ayaad u hurdaysaa subaxii markaad soo toostid haddii aad ka fakari jirtay oo aad xalaha wici jirtay isla markii yani bedelkiisa booskiisa haddii lacala ay kugu soo dhacdo subaxii markaad soo toostid waxaad sameynaysaa balakoonka ayaad fariisanaysaa ama ahayn booska aad salaada ku tukata ayaad fariisanaysaa waa sida kuu fuudiya balakoonka waa fariisan kartaa balakoon haddii aad leedahay si aad haba aad u qaadato oo neefta taad xalahay labada lugood saad isku dhaafsatid aad gacmahana saas u saaratid saas gacmaha jilbaada u saaratid neefa qaadane hadda la qaadane saddex jeer ma qaadate neef markaa qaadatay kadib qofka niyadaada tartiib ayuu ugu baxaya hadduu u jiray tan kaleto waa awoodaa subaxii salaad subax markaad tukanaysid isla goobta salaada aad ku tukatid inaa ilaahay ka bariso qofkaas inuu qalbigaaga ka saarmo kadibna baryada ilaahay markaad taa aad soo gudatid kadib waxaad sameynaysaa tartiib relax waa tartiiba u nasanaysaa taa waa qodobka labaad qodobka saddexaad haddii aan u gudbo laga yaaba dhankiina inay kaadkaato qodobka saddexaad waxaad sameynaysaa xariir ayaad sameynaysaa qofka haddii aad kala harteen ma ahan inaad aad qofka leeto aadan shukaansanin ama sidii ahaataba ama naag hadda lasoo furo oo 3 bilood cuddo hadda ku jirtid ma ahni inaad xalahay guriga fadhisid tayaabani ma asayba ku saarno way asay kuma saarno ama ahaw naag hadda lasoo furay ama ahaw naag ilmo lagu soo furay ama xalahay naag jecel kasho iska dhalinimo jecelkeeda iska yar xaafada ahayd oo jecelka normal jecelka adiga banaanka normal iska dhaha laakiin qofka markaad gudul wadaagtiin ama guur soo wada martiin ama awlaad dhexdiina idin dhextaa taa waxaa la yidhahdaa jecelka dhabta marka dadka badan waxay aaminsan yihiin haddii la isqabo hadda la kala tago ciddada naagta intay ka dhamaysanayso nin kale ma shaqaansan karto taa dadka aaminsan ay ku taalaa laakiin aniga mise dad badan oo sidoo kaleeto ila raayina way jirtaa waxaa sameynaysaa haddii aad suurteen ninkani ha u joojin niman kaleeto baro ka kac fadhiga niman kaleeto haddii aad baratid oo niman kaleeto adig hal nin maahaya 2 3 ilaa 4 haddii aad la socotid qofka kaleeto niyada aad ku haysa waa ilooweysaa marka walba qofka dadkan kaleeto la sheekaysanaysaa la kulmaysaa 3 bilood cuddada xitaa goortay ku dhamaatay iyo goorta kaleeto waa kala garan weynaysaa taana waa taa ma fahamtay haddii xitaa taas aan la sameyn karin oo isleedahay culum badan ba taa ka deeriyeen arrintaasi naag cuddo ku jirto inay shukaansan karin niman kaleeto culuman kaleetana maxalahay si saxda ma sheegin xoogaa waa isku dirirsan yahay halkaasi taa bedelkeedna waxaa sameyn kartaa asxaabtaada ayaad waxaa ka dhiganaysaa asxaab dhow wax waliba qalbigaaga ku jiro waa u sheeganaysaa ama asxaabtaada ama hooyada ama eelkaaga dad kuu dhow waxaan ka wadaa qalbiga waxbaha ku qarsan ha aamusin
iska dhigin qof keligiisa, yani ha dareemin kurbo. Si aadan kurbo u dareemin, qof kaleeta la saaxiib, ehelkaaga la saaxiib, asxaabtada saaxiib dhab ka dhigo. Noqo qof furfuran, ha noqon qof xirxiran, guriga ha ku dhex jirin. Maxaa guriga kugu xiray? Why guriga kugu xiray? Why aad u ilmeynaysaa? Waa la isfuraa, waa la kala tagaa. Waqti ku xisaabtan waqtigaaga waa qaali ina aabo. Ha iska dhigin daciif. Waxaa tahay qof geesi ah, qof xataa howlkara. Ha iska dhigin, ha daciifin, fadhiga ka kac. Haddii aadan awoodin inaad dad kale xiriir la sameyso, waxaad awoodaa inaad hooyada ama aabaha ama qaraabada ama dadka kugu dhow inaad saaxiib ka dhigtid ee awoodaa. Yacni guriga ka soo bax, ha isxirxirin. Ninka shalay ku furayba birta wuu orosaya. Kadibna social media ku arkaysaa rooskiisa soo tumaya, soo maaha? Adigana joorariga ayaad ku oynaysaa. No way, taas sameyn. Marka aniga gabdhaha Soomaaliyeed waxaan kala talinayaa taa inaysan sameynin, ay fadhiga ka kacaan. No way, ooyin iyo waxaas calaacal anaka ma naqaano. sisi2african.com ma lihi jiray. Qodobka 4 haddii aan soo gudbo, ha sheegin. يعني qodobka 4 waya macnaha waa qodobka 4 aan ku dhex jirnaa. Ha sheegin ninkaasi inaad kala tagteen, dadka ha la wadaagin. Haddii aad la wadaagtid, dadka waxay yacni ku dhahayaan maxaa u kala tagteen, qofkaasi adigoo isku nuureyseen, balaabala saan waay intay ka dhacday. adigana yacni xoogaa niyadaada stressa galayo. waxaas leedahay allelehe, haddii aad qofkan isqabi laheedeen ama qofkan haddii aad wala socon laheedeen, saas ayaa noqon laheedeen, wax walba waa ni hagaagal. stress ayaa kugu furmayso. Marka adiga yacni dadka kale, yacni ninka malihiya asxaabtaada, yacni malihi familkaaga, dadka qaaska ha u sheegan malihi. yacni dadka qaaska waa u sheegan kartaa si yacni wax urkaada ku jiro si banaanka ugu soo baxaan. taa qodobka 3 aan ku sheegay. qodobka 4 joognaa. yacni ha sheegin, waxaan ka wada dadka banaanka joogo waxa arintada ha la wadaagin. ninka inaad kala tagteen ha u sheegin idna. ma fahantay? qofkii ku weydiiyo hay abooheelo kaban haddii lagu dhaho, waxaa leedahay abooheelo uu raaya dee maxay dhibaysaa dee hadhowna kasii soconaysaa dee adigoo dhoola cadeynaysid. ma garatee? sidoo kaleeto qalbigaaga marnaba ha gelin in uu ruux ku jira qalbigaaga oo hore u jecleed, marnaba ha gelin. sidoo qalbigaaga kusoo gali karaa qofkan, yacni inaad jecleed, inaad u haystay, in kaleeto wuxuu kusoo gali karaa markaad keligaa tahay oo keligaa jiiftid ama keligaa yacni adigoo yacni wax dhegeysanayno jiiftid. macnahan ka wada sidoo kaleeto keligaa oo cunteynay. sidoo kaleeto keligaa guri haddii aad ku xiran tahay, bulshada aan laga soo dhexgelin. sidoo kaleeto waxyaalahaasoo kaleeto iyo yacni ayaad kusoo xasuusan kartaa yacni qofka yacni xoogaa xiriirka idinka dhexeeyay. waa fahanteen aan malaynaa. qodobka 5 aad u soo dhaadhacnay, gunta iyo gabagabadii ayaan joognaa. qodobka 5 waa mid aad iyo aad u muhiimsan, aad iyo aad ugu soo fikiray. haddii aan la wadaago qodobka 5 waa xamaasad ayuu leeyahay. maasha Allah. qodobka haddii aad soo gaarto qodobka 5 qaybta ugu dambeysa haddii aad soo gaartay walaalo ama walaalay, waxaan idinka codsanayaa inshallah green videogan like share intaba inaad xalaay igu caabisaan. aad u mahadsantiin. taasna waxay ii noqonaysaa dhiirigelin. hore ayaan sii soconaya maadaama haddaan dib ugu soo laabtay, yacni haddii ku ayaan dhashay. qodobka 5 waxaa sameynaysaa oo 5 ku jirnaa. ma tahay qof yacni jecel la jiifo? ma tahay qof iska murugeysan? ma tahay yacni waxyaalahaas oo dhan iska dhib ma lahan. sidaarta u ahaw. laakiin mid baan kuu sheegayaa, talabo yar baan ku siinayaa oo qodobka 5
ولا دمايا سلاس وحلا دمايا راد نقطة ديفا بودي قدو كشانات مشيغا إن شاء الله كريم قدو كشانات فيديو حيقو إيان كشيغي دونا دي لاي كرال نقضو إن شاء الله فيديو غان هدو نقضو مد فيوس كيسا بدن أما لما لايكتيسا بدن قدو كشانات إيو وحيالا كالتو كبدن أيان إذن لسو وداقايا إن شاء الله كريم تاني واتو سالير كليا لكن ويلي لسم gaarin yaaba dhow waxyaalo badan ayaa dhiman insha Allah karim adigana faa'iideyso dadkan u faa'iiday haduu ilaahay karaan noqdo fiidiyogan haduu kusoo gaaray ilaa intaa soo gartay waxaan jeclaysan lahaa insha Allah karim inaad la wadaagto asxaabtaada haduu ilaahay karaan noqdo raggana insha Allah mid kale qaas ah soo sameynaya oo goone badanaa raggan aniga ragga kusoo dhex koray waa qanaa ragga dabeecadooda si fiican u garanaya raggana hadday kala tugnayaan qaybta commentiga يعني qoraalaha igu soo ay la soo wadaagaan waxay jecel yihiin insha Allah karim waa soo sameeyaan haduu ilaahay karaan noqdo kan waa hordhac fiidiyoogan insha Allah karim maana isku soo diyaarinin inaan fiidiyo sameeyo sidoo kale maana isku soo diyaarinin inaan ka hadlo howlahan oo kaleeto mana ku soo fikirin maskaxdayda ku soo dhacday inaan nila wadaago arrintan aad u muhiimsan dhowr jeer ayaa jecel aniga ugu dhacay sidoo kaleeto qalbigayga waa ka saaray oo xalahay maan u joojin qabka ugu saaray qabka ugu fudud ayaan jeclaystay inaan nila wadaago taana waa nila wadaagay haddaan weli waxaa sii dhiman 4 qodob ayaan nila wadaagay inta kale haday jeceshay inaan nila wadaago insha Allah karim aan idinka arko lagta viewska shareka committee hadii intaas aan ka arko insha Allah karim waxaan huwaal inaan soo badi doono arrimahan oo kaleeto arrimo kaleetana waa iga soo codsan kartiin hadii aad doonaysid insha Allah karim aan soo laabtay way soo laabatay bye bye saata مرة جعل إقداف كل قعل I love you بيل شكذا ذا قليل أذي قدام كليل أذي قدام كليل إيقو كولي مولا اسنولي إيقو كولي مولا اسنولي إيقو كولي مولا اسنولي